tobanka kala fadhiga labaad fadhigii 7 sano waxaan ku furanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaana aqrinaya senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله عليه. Ayuub Ismaaciil Yuusuf. maya haddii uu gacanta taagay oo keliyo iskale maaha. Iftiin Xasan Xuseen Cali Xaaji Cabdisalaam Xaaji Maxamed Maxamuud okay. Sayid Cabdi Xuseen سعيد عبد الحسين هلا يوسف قيلوغاس عبد الواحد علمي عمر عبد احمد بحلو سمسم ابراهيم علي فرتون عبد القادر كرامه زيقة حسن حسين أحمد عبدي رفيق بيها تركيب أحمد قوي أحمد عبد تعال هذا الأول يا أبوكر أحمد حاشي كبيرة محمد علي نعيمة إبراهيم يوسف كواهر أحمد علمي عبد الله عبدي كروم أوكي فوتان hal qof oo keliya ayaan gacanta taagay marka waxaan rabnaa cod baanu qaadaynaa inaynu waxa weeye waa 19 ma 19 okay Ahmed هذه حديث كل شيء. أوكي. مركا عقبي وقارينا. إذا انكسر إنه أجندي. أنت هاي كنت فورا. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. قدومي حبينا وسلامتي برلانكا waxaan rabaa gudoomiye waxaad soo gudbisay shalay in laga hadlaayo muushikan hadda ku yaala maanta laga hadlaa soo gudbisay waxaan rabaa inaan sheego 48 saacadood ugu dhawaada wiilay haddeer wuxuu ku dhigan yahay ajanta uu ku dhigan yahay in laga bedelo oo la haddaa laga bedelayaa anagu meel hadda dastuur uga dhigan tahayna ma arkin oo la leeyahay yani ajantihiyaa meel dhexa laga qabtay oo mataqaanaa la bedelayaa hawshana waxay ku socotaa saas hadday tahay sida aqalkii golaha shacabka ku dhacdoo kale sidii hab soo socda waana maraynaya ina dhici doontona waa maraynaya muddaan guddoomiye annagu waxaan iskula joognaa kaas yarkaan iskula joognaa kaasaan iskula joognaa anigu waa buuggii sharciga ah haddii lagu shaqayn waayana anigaa iska bilaaba oday caadiya noqono dadkaan ka bedelay waxay wariyaashaasu noola joogaan oo noola joogaan mataqaanaa ciidamadaas lagu waardaynayaan waa ummadda dhexdeeda buuggaas yarka oo intaas la eg inay ilaaliyaan jooga haddaan anagu ilaalin wayno waxaan ka noqonaynaa aniga iga bilow oo adiga ku soo xiji maxaa madaxweynaha iyo wasaaraa ku soo xiji oday caadi iyo beeshiisa ayaa noqonaya haddii sharciga lagu shaqeyn waayo waa ka baxa xildhibaanada golaha aqalka gudoomiye sida xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen salada ah in laga saaro ajandaha waxaan qabaa maadaama arrintan ay hortaalo golaha shacabka annagina haddaan doodii xaggan ka furno golihii kale shacabkana uu soo saaro go-aan annagana aan soo saarno go-aan meesha waxaa ka abuurmaya khilaaf iyo wada shaqeyn xumo si aan looga hordhicin aan dhinacna aan isku raacno golahaasna aan ka warsugno annagana ajandaha mid dib noogu yaallo oo aan ka hadalno uu noqdo mas-uuliyadna saarana waayo waa mahadsanka salaama بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دكتور iyo senatarada sharaxta leh waxa maanta ajandaha la isugu yimid golaha wahaa go'aan golaha guddiga joogtada oo shalayta soo go'aamiyey ah in looga doodo maanta go'aanka xukuumadda ay qaadatay 6 bisha guddoonkana uu la hadlay shacabka Soomaaliyeed miidiga kala hadlay arrintaas in maanta doodeeda la furo waxaan qabaa ma aha markii ugu horreysay dhowr maalin ka hor golaha shacabka arrintaasi isu soo qaaday waxaa dhacday in isbitaal la sameeyey oo cadaadis iyo pressure iyo faragelin xukuumadda ay ku samaysay arrintaas u baahan waxaan ognahay maanta ilaa xalayto ilaa saaka in madax dowladda ka tirsan iyo maamul dowladeed ay dadku soo wacayeen oo hanjabaad iyo wax la isugu darayay arrintaas si loo baajiyo ana waxaa rabnaa golahan golomada banaan ee ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda inuu ka hadlo waayo waxaa muuqata in sidii golaha shacabka loo curyaamiyey shaqadiisa loo diiday maanta tan loo sameynaayo masiirka ummadaana in ay iyo wixii ku sugaysan runtii inaan maaragtay aanan doorkeena ka soo bixinin dowladda iyo nidaamka jira waxa loogu talagalay in sharci iyo dastuurka iyo ilaaliyaan waxaa jiro ciddii doonto waxay doonto waa ilaalin kartaa waa weli coday kartaa meel ka dhac dastuurka iyo gaf iyo wax badanaa jiro pressureka la saaraayo senatarada waxaa la rabaa qofku markuu inta imaanayo u dhaarto waxa u dhaartay inuu ilaaliyo danta dalka diinta iyo dastuurka waxaa cajiib leh in dad xataa guddiga joogtada ku jira iyo dad kale ee shalay xarintan in pressure u saareen wax aysan aaminsanayn waa la soo cadaadiyay leeyahay qofka uu sameynaa waxaa la rabaa qofku u dhaartay inuu qormo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليبيع دينه بعد الدنيا قفك أصله مؤمنا أي صباحدي وما تقال قنا قلبت أو سبجرا كانمو أما المسلم ولا قنا صباحدي وقنا قنا قال سلو أدوك يسكت يسل أنا واحد واي واحد ماشي على واحد واي وأنا كذا استورك ذلك إياه أنا يحب نقول دمير مجلسه مصلحة كاس كأي تقول يا كجرته
dood in laga furo oo laga hadli waayo oo intii powers iyo xukuumadda waddankan iyo maamuladii jira ay ku bixiyaan pressure guddoonka iyo senatarada ay saaraan ay joojiyaan gudoomiyaha dhamaysta raaliha gudoomiyaha dhamaysta waxaa rabaa waxa waaye taariikh waa taariikhdaas ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegaa in masiirka ummadda soomaaliyeed maanta in badan dhalinyarada ay ka qayb qaadanayaan in maaragtay meel mugdiyo u galo arrintaas aniga shaksiyana beri aan u ahay ilaahay hortiisaan beri uga ahay ummadda soomaaliyeed horteedaan beri uga ahay in la is-hortaago waddanka dimuqraadiyada la isku doortay codaa la isi siiyey xoog wax looma qaadan haddii systemka iyo dowladnimada iyo nidaamka la ixtiraami waayo oo dadka hay-adaha inay shaqeeyaan la hor istaago aniga aqaan waddankaas usii shaqayn doono waxaa la rabaa in wanaagiisa laga shaqeeyo magacii la doonaa loo bixiyo laakiin waa in diidmo wax u eg waayo golaha shacabka wax diidaa ma jiro america obama healthcare waa isdaba socdaa sanadka iyo houseka way ka wada socdaan wax diidaayo ma lahan aan sugnadu waa hawshii shalay iyo caqabadihii jiray laakiin waxaa qaadanayo madaxda aniga marka waxa waaye ummadda soomaaliyeed inaan badbaadinaan ka hadlayni waa diidi karnaa waa yeeli karnaa golihii mar haba golihii wasiirada oo shalay go-aan uusan isagoo qaadan ansixiyey oo shalay lagala tirsan go-aan madaxda sare qaranka ay qaadatay ay ayaga marqaati ka noqda inay garab ka saarteen bareshar inay ku saarteen annaga marka inaan saxnaa anagaa nala rabaa wax aanan qayb ka ahayn oo aan nagala tashanaa rabaa dusha in naloo saaro waxaa la rabaa qofku waxa uu shaqeeyo dowladulis maaha mucaalimo maaha laakiin sharciga iyo nidaamka in la ilaaliyo waa tii aan u dhaaranno waa inaan ku controlno waa tii aan u dhaaranay haddii marka taleefon lagu soo waco oo wax waliba kaa bedelaayo oo dib arrintaan ka bax leeyahay runtii waxa waaye waa masiibo qaran waaye waa ballanfur waaye waa xadgudub dastuurka iyo wixii loo dhaarta taasaan kusoo gudbayna asalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiye qoladii soo qor salaamaya salaamka bacda gudoomiye annagu waxaan soo jeedinay in ajendihii aynaan ka doodin hadda sababta aanu sidaa u soo jeedinina waxay ahayd ajendahan wuxuu ka furan yahay aqalka hoose golaha shacabka iyagiibaa doodiisu ay u furan tahay oo u taallaa si wada shaqaynta iyo wada socodku iyo kaalinteenu meesha ay ugu habboon tahay ay u hesho inaan iyaga jaanis siino fursad siino inay ka bogtaan ayagu go-aankooda gaaraan innaguna markaas kaalintii aqal iyo odaynimo leh oo inooga habboon halkaas inay ku habboon tahay baanu aragnay sabab kale oo meesha ku jirtaana ma jirto sidaa awgeed waxaan soo jeedinaynaa in ajendahaasu golaha shacabka uu ka socdo aanu dayno innaguna meeshay nooga beegnaato oo nooga bilaato aanu waajibkeena ka gudano waa mahadsantii
tirada diiday waa koob iyo toban, tirada ka aamustay waa afar, tirada guud waa soddon. sidaas daraaddeed ajendahan dib aan u dhigay. Waad mahadsan.